كي حمرو ديدن حمر تسوجوجيا كي قلمدو أما بيدبا جوجو ديدن وديديا مركا ساسان ku joogina anaga marka waxaan rabnaa waxa waay dadka Soomaaliyeed inay fahmaan in la qaldama dadka haddii laga guuraayo isdheelitirkii tabnaa ee awoodaha beelaha ku dhisnaa ee loo guuraayo isdheelitir togan haddii loo guuraayo waa in la dhisaa hay'adihii laga maarmaanka u ahaa in la qaban karo doorasho maxaa kamid ah garsoor madax bannaan maxaa kamid ah dastuur la isla ogol yahay maxaa kamid ah guddi doorasho la isla ogol yahay madax bannaan maxaa kamid ah guddigaas inuu capacity iyo awood u leeyahay inuu dadka codbixiyaasha diiwaan geli karo inuu liisaska dadka la soo magacaabo xisbiyada oo qaban karo inuu codbixinta si uu transparency daafurnaana u tiri karo inuu anshaxi guddiga doorashooyinka oo sameey karo inay kormeerayaal iyo dadka caalamiga ay ka soo qayb gali karaan si loo hubiyo wixii inay disputes xalin khilaafada hadii la yiraahdo maxaa xalil u ah loo xalinaya Soomaaliya hal waxa isku haya dastuurkaas ku meel gaarka iyo baarlamaanka isku haya laanta fulinta iyo madaxweynaha deertaan dastuurkiina si unilateral oo kaligiisa u bedeshay baarlamaanna ima soo doornaa shacab Soomaaliya soo doornaa uu leeyahay meeshaasna wuxuu tilaabsan karo wixii aan raadinaynay ee samaa ee wanaaga ahaa isdheelitirkii tognaana ma gaari karayno waa gartay waa maasada waa hagaag waa yahay halkaasaan ka sii aanbaqaado waxaa tiri doorashan qabanayaa buu yiri madaxweynuhu haddii doorashadaasi ay noqonayso mid aan 320 iyo dhowr xildhibaan aysan dooranayn oo adigu sida aad halka u dhigtaa tiri jabkii gali kara ama ku jiraanba oo dad Soomaaliyeed codka laga raadinayo maxaad ku diidaysaan haddii Xasan Sheekh iyo adiga iyo madaxda kale ee tartamaysa intay tartamaan sanduuqa lagu kala baxo meesha doonta ha noqotee ma wax dooda ka jirta iyo waliba aad ka qabtaan arrintaas mise dadka laftigooda waxay noqonayaan dad jabka lagu shubto waxaan ku sharaxay mawlid oo dadku dhageysan u sharaxay guriga markii la dhisaayo asaaskiisa hadii laga soo boodo waa duma adigu waxaad ka hadlaysaa ma guriga asaas loo dhisin dabaqiisa kor degtaana ay leedahay asaaskiya qaldan fama buniya ama lacag uu siiyaa waa saxsado soo rabo uga ansaxsaday waxa la rabaa marka dastuura adiga ansaxsatay sharci doorasho adiga aad samaysatay aad wax u taqaanaa sportkan kula soo aada adigu ma ogoshahay ciyaar ninka barooniga dheela oo jeebka firimbi ku soo rifiriya ma dheelay adiga war game kan waxa la yiraahdaa waa ciyaar waxa waaye ninka barooniga dheela adiga ka soo horjeeda firimbiga jeebka u jira asaga rifiri ah kaas ciyaar ma aha kaas doorasho ma aha waxa ka sii daran dastuurkii dalka isku raacsanaayeen iyo nidaamkii parliamentarianka heshiiska lagu hay awood qaybsigan oo ku saleysnaa oo aan sheego in kastoo mid taban uu yahay aan mid togan aadi lahayn wuxuu leeyahay meeshan ka saaray wartaas madaxweynahan kii ku horeeyay waa laga diiday kuwa waliba kaas dastuur ma bedelin madaxweynihii hore waa gartay waxa kaliya uu dhahay waxay ahayd doorasho qof iyo cod aan qabana sharci oo ku sameystay asaga baarlamaankan sheegaysa labada baarlamaan waa ka asaxsaday wax walba waa sameeyay في النهاية وحالي وحنا ليسكم مرة عسنا وكمان إسكدي عبد الرحمن ماشي وحال راه مركب واحد دور الشان السيدي ذبا وإن ليسكون راسين يعني دستورك ضدنا مفيدو ودستورك ما بتجوك هذا دور شو دستور لسوب الدلي يوربع مدحوينا إنه دور الشو السجا أو إسكالية هاي لاعب نكية هاي جاب كان فريم بيوجرو إنه قبصة حتى هذي اللي إسكده حتى كرتي دور شو قبصة الملك حتى أنا قاعد أنقب سني
oo mucaarad qabsanin oo Puntland qabsanin oo Jubbaland qabsanin oo adduun oo sala hadal haddii la iska daayo xataa war idinka xataa doorasho hal degmo qabta leeyahay xataa karti ku qabtaan male arrinta aan ka hadalno aad ku xustay aasaaska guddiga doorashada ma adiga oo ama siyaasi guddoomiye xisbiya iyo sida hadalka u dhigtaan dad saamileeya miyaa iska leh inay dhisaan soo guddiyadii hore dowladdu ma dhisi jirin ama madaxweynaha xilka fadhiya war shamsi ah lagu qaado meesha ha laga saaro ama yaa laga saarin ha soo laabtee inkastoo aan arkin bayna soo laabtaan soo dowladdu ma dhisi jirin guddidaas maxaa kan gaar ku ah guddigan hadda la dhisay adigu baa guddi soo qabsaday guddiga iyo sharciga ku dhisan yahay sharciga xisbiyada sharciga doorashada waxa dhanaaba baadila sababtoo ah dastuur oo unilateral lagu bedelay ku dhisan yihiin aan ku dhahay waxaan haysta ani guddi keliya maba haba waxa dhanaaba waxay yihiin aan ku dhahay waxa lagu dhisay baadil saas daraaddeedna waaba sharci daran cabdiraxmaan xildhibaan dastuurka baarlamaankii baa gacanta u taagay oo ansixiyey baarlamaankana waxay dowladdu ku doodaysaa soomaaliya dhan buu matalaa isagaa madaxweynaha doortay wasiirka koowaad uu soo magacaabay ayagaa ansixiyey golihii wasiiradan ansixiyey ma waxaa leedahay baarlamaanka aad ka tirsan tahay waxa ma qaban karo sharcina ma aha walaalo mawlido dooda dastuurka markii la bedelayaan aad u soo galnay sida habraaca lagu bedelayna qalad u ahaa sida loo bedelayna qalad u ahaa codka lagu bedelayna qalad u ahaa qarjajac indha cadaysaa lagu soo bedelay waxaan taaganahay waxaa waaye sharci habraacu leeyahay dastuurka alla keena in lagu bedelo habraaci naftiisaa laga tillaabsaday waxaa laga tallaabsaday wadooyinkii in la maray ay ahayd codkii in lagu ansixiyey ay ahayd wax walba ansax leen iska dhahay baarlamaanka walaalo wariyaha tahay telefishinada ka fiirsataa idaacadaha kala socotaa for the sake of debate inaa u samaynaysa argumentigaaga iyo doodaada waa ogahay meeshaan macalin ansax la yidhaaha joog wixii yimaada la iska ansixiyaa waxaan ku weydiiyey dastuur sidiisaba in la bedelo waa politica dastuur haddaan dadka u sharaxo adoo iga raalli waxaa waaye political agreement waa heshiis siyaasadeed waaye dastuurka heshiis siyaasadeed dadka stakeholderska ha galo baarlamaankan noo dhisan waa kuu sharaxay waxaan ku idhi isdheelitir tabanoo ku joogaa haddii mid togan loo gudbaayo waa inay inclusive a la yidhahdaa waa in loo dhan yahay sidiisa waaba saxba waa in lagu qanacsan yahay markii aniga baarlamaankii ku-meelgaarka ahay ee ugu dambeeyaan ku jira aniga markii aan negotiate garaynaynay ama aan wadahadalka uga jirnay axdiga ku-meelgaarka in laga baxo oo dastuur ku-meelgaara loo baxo wixii naga soo maraan ogahay dastuur inta la iska fadhiisto baarlamaan fadhiisto shaaqa meesha fadhiya ansax oo iska yiraahdo hore loogu socdo xaggee laga fulinaa dee hawo ka fulaa maamul goboleedyada diidan dad siyaasiyiinaa diidan civil society shacabka soomaaliyaan ogolayn cid lagala tashaday male cid lagala dooday male cid hal qodob oo kamid xataa cid lagala dooda lama arko wuxuuna dastuurkaana uu burinayaa tiirarkii ay ku taagneed dowladdu burinaya waa gartay oo ah isku dheelitirkii awoodaha iyo nidaamkii baarlamentariganka ahay ooba aasaas ku ahaa heshiiskeena siyaasadeed dastuur ku dhisan yahay ayuu burinayaa famaa buniya cala albaatil fahuwa baatil waa gartay dowladdu waxay leedahay waxaan anagu qorshaynaynaa doorashadaas inaan qabanno meelaha lagu qaban karina waxaan ka qabanaynaa meelaha kale haddii sidaasi ay dowladdu ku adkaysato maxaa adinka idinla gudboon oo aad yeelaysaan maxaase ka dhalan kara adiga iyo dadku dhegeysana waxaan u sheegaa haddaa annaga iska dhaafna xataa waxba ma qaban karaan dalkan hal ninaa maamulo madaxweyne xashan qaal yidhahdaa guddiga doorashada asaa maamulo kabinetkana asaa maamulo baarlamaankana asaa maamulo hay-ad kastoo dalka timaadaba asaa maamulo hadduu asaga iskala gaaro doorasho qaban kara waa arkaynaa haddaa iska annaga maba haysanaba ayaga meeshay rabaan doorashaha ka qabsadaan maba haysana annaga tusaale markii saddexaada waxaa la leeyahay juunaa la qabanaa doorasho meeqa jeeraa la yidhi juunaa la qabanaa doorashooyinka dowladaha hoose meeqa jeeraa la yidhi meeqa jeeraa laga baxa hadda shirkii ugu dambeeyey November oo Axmed Noogo ka baxay markii la isugu yimid waxaa la yidhi muddo yaan qabanayna iska dhaafno waa ku ceeboobnay muddo war waxaan dadka war waxay qaban karaan lama arko kartina meeshaan ma taalo
khibrad iyo waayo aragnimo iyo dhaqaale iyo heshiis siyaasadeed inta ay rabtaan kuu sheegaa doorasho kow waxay rabtaa heshiis siyaasadeed laba waxay rabtaa dhaqaale saddex waxay rabtaa dad u tababara shaqada inay qabtaan oo intaan kuu sheegay ay sameeyaan codbixiyaasha inay diiwaan geliyaan seejooyin